Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhowaada xubinteenii wararka ciyaaraha. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in ciyaaryahanka reer Baraasiil ee Willian uu doonayo inuu iskaga tago kooxda Chelsea. 31 jirkan reer Baraasiil ayaa si aad ah u doonaya inuu ku biiro kooxda Barcelona. Sidoo kale waxay wararku sheegayaan inay Barcelona dhowr heshiis miiska soo saartay xagaagii la soo dhaafay, laakiin Chelsea ayaa dhammaantood iska diiday. Wargeyska Deportivo Mundo ee laga leeyahay waddanka Spain ayaa sheegaya in ciyaaryahankan uu iska diidayo inuu heshiis cusub u saxeexo kooxda Chelsea. Willian oo heshiiskiisu dhacayo xagaaga soo aadan ayaa la sheegayaa inuu ku faraxsan yahay kooxdiisa Chelsea, laakiinse uu ku riyoonayo inuu mar uun ka garab ciyaaro xidigaha waaweyn ee Barcelona sida Lionel Messi iyo Luis Suarez. ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo ayaa xalay dhaliyay goolkiisii 99aad ee uu dhaliyay qarankiisa kadib markii xulkiisu 2-0 kaga adkaaday xulka Luxembourg. Portugal ayaa u soo baxday koobka Euro 2020 iyagoo ku soo baxay kaalinta labaad maadaama ay hore u soo baxday booskaasi xulka Ukraine. Tababaraha xulka Boortaqiiska Fernando Santos ayaa ciyaarta kadib yidhi, waxaanu caddaynay inaanu nahay mid ka mid ah xulalka ugu fiican qaaradda Yurub iyo weliba caalamka. Waa inaad ku kalsoonaataa ciyaartoydaada. Sidoo kale waxaanu tegaynaa koobka Euro 2020 annagoo musharaxiin u ah. Xulalka kale ee soo baxay ayaa waxaa ka mid ah Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Ingiriiska, Finland, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Holland, Poland, Ruushka, Spain, Sweden iyo weliba Turkiga.